cabdiraxmaan ciise cali fiidow iyo xasan cali xasan keerow ayaa al-shabaab kaga biira degmooyinka dayniile iyo waajid horaantii 2011 iyo dabayaaqadii 2010 cabdiraxmaan ciise cali fiidow ayaa ka soo dagaalama gobolka Shabeellaha Hoose isagoo sheegtay inuu ka tirsanaa koox qaada weerarada ku dhufa ee ka dhaqaaq ah waxa uu sidoo kale ka hor cadeeyay fadhiga maxkamadda inuu ku dhaawacmo duulaan ay ku qaadeen fariisimo ay leeyihiin ciidamada xoogga dalka taasi oo sababtay dhaawaca fiidow intaasi kadib ayuu codsaday qaybta dilalka qorsheysan oo ay ula jeedaan maleeshiyada dhalinyarada la marin habaabiyay ee dadka waxgalka gaadmada ku dila waxaana xilligaasi laga soo diray meel duuleedka ka ah degmada Qoryooley koox uu ka tirsanaa horjoogahooda ayaa faray inuu ku guriyo noqdo hoygiisa Dayniile waxaase barbar socday in xilligaasi loo diyaarinayay dilka marxuum nabadoon Hilowle Xeefow Xuseen xasan cali xasan keerow ayaa tababarkiisa ugu horeeyay ku qaatay buuraleyda Xarar waxa uu ka soo dagaalamay gobolka Hiiraan sidoo kale waxa uu sheegtay inuu qayb ka ahaa weerar lagu qaada fariisimo ay leeyihiin ciidamada Hiil Walaala ee qaybta ka howlgalka Amisom ee Djibouti keerow ayaa codsaday in loo wareejiyo qaybta dilalka qorsheysan isagoo xilligaasi fursad u arkay ku noolaashiyaha magaalada waxa kaliya uu yaqiina ayaa ahayd daadinta dhiiga si uu u maareeyo nolosha magaalada labada nagar qabe ee lagu fuliyo xukunka dilka ayaa sidoo kale soo wada galay magaalada Muqdisho dabayaaqadii 2016 balse waxa ay wada galeen howl dhakrid ah iyagoo nolosha u aqoonsaday nabadoon Hilowle Xeefow Xuseen labadii bishii 11aad sanadii 2016 ayaa iyagoo baxsada ciidamada amniga ku dhaawaceen suuqa weyn ee degmada Wadajir xilligaas oo gacmahooda ka qoynaa dhiiga marxuum nabadoon Hilowle Xeefow Xuseen dowladda Soomaaliya ayaa ka gudatay waajibaadkeeda waxayna u fidisay daryeel caafimaad kadib ayaa eedooda lagu wareejiyay xafiiska xeer ilaalinta halkaas oo joodintooda kadib maxkamadda horgeeyeen dambiyada loo haysto labada nagar qabe dhowr jeer dhageysiga dacwadooda kadib waxaa xukun dil ah lagu riday 22 bishii 8 2017 maanta ayaa la dhadhansiiyay xanuunka geerida waxaana lagu fuliyay xukunkii dilka ee hore loogu xukumay sida uu u sheegay warbaahinta dhamma muumin xuseen cabdullaahi ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida bismillaah taariikhdu markay ahayd 3 bishii 8 2017 maxkamadda darajada koobaad ciidamada qalabka sida waxay markii saddexaad u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay eedeysanayaal 1 xasan cali xasan keerow 25 jir ah ina edebo xasan ibraahim ku dhashay Bakool 2 cabdiraxmaan ciise cali fiidow 22 jir ah ina shukri sheekh siyaad ku dhashay Xamar kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in ay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab una qaabilsanaayeen fulinta dilalka ay kooxda qorsheyso iyagoo si bareer ah u dilay marxuum nabadoon Hilowle Xeefow Xuseen taariikhdu markay ahayd 2 bishii 11aad 2016 dimbigaas oo ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir taariikhdu markay ahayd 22 bishii 8aad 2017 gacan ku dhiigle shabaab xasan cali xasan keerow 2 gacan ku dhiigle shabaab cabdiraxmaan ciise cali fiidow waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuum ekis nabadoon Hilowle Xeefow Xuseen maanta oo ay taariikhdu tahay 7 bisha 1aad 2019 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wabillahi tawfiiq toogashada ayaa ka dhacday fagaaraha cadaaladda ee iskool booliisiya waxaana safaf dheer u galay qeybaha kala duwan ee ciidamada qaranka mas'uuliyiin dawladeed oo ay ugu horeeyaan gudoomiyayaasha maxkamadda ciidamada xeer ilaalinta ciidamada amniga dawladda hoose iyo dadyo kale ayaa halkan goobjoog ka ahaa Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho